waxaa kaloo yar jirtay arrimo maalmaha laga yaaba inay dadku ay yar maqleen oo ku saabsanayd dhul masjidka ma garanaysaa ama sheekhu uu lahaa dhulka wuxuu isugu jiray dhulkan wuxuu isugu jiray dhul oo ma garanaysaa masjida iyo dhul ma aragtay sheekhu guriye iyo uu ka dhisay iyo dukaame iyo masaajidka ku nafaqeeyo ama anagaba lagu soo koriyay intaas isugu jiray marka waxaa jirtay meel jardiin ay dawladdu u qaadatay hase ahaatee markii dambe anigu hadda aan ka markhaati kacayo maadaama aan meeshaan joogo arrintaasina waxoogay ma rabin inaan is-iclaanan u sheego laakiin maadaama ay dhacday jardiinkaasi markii dambe dawladdii waad garanaysaa iska xumaato nidaamkii iyo qashin quba iska noqotay waxaan xusuustaa in waalidku uu ka daba tegey oo in badan u dacwooday la siiyeyna loo soo celiyey yani taas waxaan u hubaa lanno waan iska yarayn laakiin in uu faraxsanaa maalmaha oo maaragtay dhulkii ma garanaysaa maadaama manfac caama u noqon waayo meel iska qashin qub in loo soo celiyey oo dabadeedna uu ka dhigtay ma garanaysaa dhul uun isaga markaa hantidii iyo masjidkii iyo raacsan marka garan maayo dad uun walaalaheen unbaa yani ku yar fikiray inay meeshaan meel iska caama ay tahay miyaa moogise wax u dhaceen kulleyba waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sida wanaagsan ay ku dhammaatay waxaan si khaasa aan u xusaya halkan walaalkeen insha allahu tacaala duqa magaalada xasan maxamed xuseen mungaabi oo hadal aad u wanaagsan oo maaragtay weliba yani uu ku qirayo khayrka iyo fadliga masjidkan uu leeyahay oo isagoo kaba mid ahaaba ardadii halkaasoo maaragtay timid ama qur-aanka ka baratay ama ma garanaysa xataa imtixaanka gashay haddaan ogahay inuu duqa magaalada noqon doono waaba baasin lahaa maalintaasi laakiin waa kaasoo marka isagoo laftiisu waa xaafidul qur'aan waa saas maba yimaadeenba hadduusan xaafidul qur'aan ahayn lanna meesha waxaa isugu yimid masaajida waxaa la tegayay tartan qur'aan oo caalami oo sacuudiga ka dhacaya ayaa la tegayay marka waxaa lasoo xulay dugsiyada laga soo xulay xufaadii xulkii ayay ka soo baxeen arday ay ka soo baxeen oo maaragtay la isku kala reebay ma sha Allah marka aad baan hadalkiisa aan ugu farxay runtii iyo sida wanaagsan ee uu ku dhameeyay masaajidkaas maaragtay iyo hantidiisii iyo khayr Allah siiyo waa soo duceynaynaa barakallahu fiih iyo caam ahaan wixii mas'uuliyiin iyo wax alla wixii arintan ka dadaalay oo dhan hada ka gaadho waan u soo duceynaynaa wajazaakumullahu khayran wa qariban dhowna insha Allah waa tagaya insha Allah aad baad u mahadsantahay kelmadda